masiirka sooma awdal uga hadla oo uga taliyaan idin nidhiye annaga na'iisadaydin maanaan odhan na'iisadaydin maanaan odhan danihiin baad 10 baasaboor u leedihiin koobiya 20 guddiya Hargeysa loo dirayaa koobiya 20 guddida la diraya cira loo dirayaa ha soo khashifmina ha soo qaadanina waxaan awdal masiirkeega ahayn ha iskugu keenkeenina wallaahi waa naga dil ninka maanta codkiisu hoos u dhaqaaqow waxa weeyaan adigaan kugu horeysiinayna waxaan leeyahay suldaanadayada sharafta leh iyo ugaaska hana gawricinina waan iska celinaynaa maanta waa noo halgan hana gawricinina wasiirada gobolka awdal waxaan leeyahay nin walba halku taagan yahay waan ogna waxaan leeyahay waxaad la yaacaysaan gobolka awdal joojiya oo nooga dhex baxa salaadiintayada annaga iyo salaadiintayadu mid baan nahay waar ilaahay baa wax idin siiya maanta lacagta aad la yaacaysaan ee salaadiinta ku kala iyo ummadda awdal aad ku kala jabinaysaan joojiya wasaa'ila iyo samaraan 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 halkan waxaan u joognaa annaga oo haweenka jarka qayb ka mid ah waxaan u joognaa haweenka jarka qayb ka mid ah annaga waxaan u joognaa qadiyada saylac hal mid waxaan leeyahay Soomaaliland hal midna waxaan leeyahay salaadiintayada hal midna samaroon weynaan leeyahay ciise isaga waa noo dagaal waxba odhan maayo ciise cirka soo dusha waa noo dagaal waxa weeye waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka waxaan leeyahay madaxweynaha Soomaaliland shan madaxweynaha wadanka soo maray shanta madaxweynaba waxa lagu dayay waxa maanta lagu dayay adiga shanta madaxweynaba way diideen madaxweyne waxaan ku leeyahay saylac waa lagu soo duulay waa duulimaad Itoobiya laga soo duulay Jabuuti baa laga soo duulay waxa weeyaan way caddahay oo waad ogtahay haddaad habratay oo qadiyada saylac had cagta dib uga dhigtay annaga difaacanayna bil fadlag waxaan ku leeyahay madaxweyne madaxweyne waxaan ku leeyahay jananka ciidamada waxaan leeyahay naga soo qaada ciidankiina annaga difaacanayna adalan baayir annaga difaacanayna annaga u taagan ciidanka bil fadlag waxaan leeyahay ciidankiina nagala soo baxa ciise lugta ha noo qabanina ciidankiina naga soo saara haddaad allihiina leeyahay annaga waxa weeyaan iyo ciise waa isnaqaan nin walba wuxuu ahaan jiray buu noqon doonaa ninna libaax buu ahaa midna waraabuha nin walba wuxuu ahaan jiray ayuu noqon doonaa ciidanka naga soo saara salaadiintayada waxaan leeyahay suldaanada gobolka awdal waxaan leeyahay masiirka ummadda awdal gacantiina iyo afkiina ay ku jirtaa waxaan idin leeyahay adeerayaal waxaan idin leeyahay masiirku gacantiina ayuu ku jiraa qiyamka ummadda awdal gacantiina iyo afkiina ay ku jirtaa hana gawricina suldaana hana gawricina waxaan leeyahay suldaanadayada sharafta leh iyo ugaaska hana gawricinina waan iska celinaynaa maanta waa noo halgan hana gawricinina waxaan leeyahay wasiirada gobolka awdal waxaan leeyahay nin walba halku taagan yahay waan ogna waxaan leeyahay waxaad la yaacaysaan gobolka awdal joojiya oo nooga dhex baxa salaadiintayada annaga iyo salaadiintayadu mid baan nahay waar ilaahay baa wax idin siiya maanta lacagta aad la yaacaysaan ee salaadiinta ku kala iyo ummadda awdal aad ku kala jabinaysaan joojiya maanta saylac qadiyadeedu waa samaroon oo hal mid ah samaroon oon kala hadhayn samaroon oo hal midha u taagan weeyaan haddaan ummadda awdal nahay dhammaanta iyo saylac baan u soconnaa wallaahi baa idaan sidaan nagu jajabin karayn waxaan leeyahay
waxaan leeyahay qolada golaha wakiilada aqalka labaad ee Soomaaliland looga taliyo waxaan leeyahay golaha wakiilada inamada noo jooga war waan idin dooranay gacantayadaan idinku geynay meesha fardo kuma idaan tagin iyo orod codkayaga iyo gacantayada ayaan golaha wakiilada idinku dhex geynay halka aqalka Soomaaliland looga taliyo masiirka Soomaaliland uga hadla oo uga taliyaan idin nidhiye annaga na'iisada idin maanaan odhan na'iisada idin maanaan odhan danihiin baad 10 baasaboor u leedihiin annagu haddaanu nahay haweenka reer Awdal waxaan leeyahay dhalinyarada reer Awdal war waxba inooma hadhin waxa weeyaan halgankeenu waa saylac hal naaskii ninkii gaadhow saylac ha laga helo halgankeenu waa saylac waxaan leeyahay halgankeenu waa saylac han iskugu nimaadna saylac yaynaan u kala hadhin haddaan hooyooyinkii Awdal nahay dhexdaan idin xidhannahay waan idin ag taagannahay waxa weeyaan dhulkiinnii baa la qaatay maanta halgankeenu waa saylac baan leenahay halgankeenu waa saylac waxaan leeyahay cirrana kala dooro saylac iyo salal iyo Soomaaliland waxaan leeyahay salal iyo Soomaaliland kala dooro waxa weeye waxaan idin leeyahay haddaan samaroonnahay waxaynu hal mida waxa maanta la saaray waan ognahay waxa ka socda safaari 22 guddiga Hargeysa loo dirayaa 22 guddida la diraya cirra loo dirayaa ha soo khashifmina ha soo qaadanina waxaan Awdal masiirkeega ahay ha iskugu keenkeenina wallaahi waa naga dil ninka maanta codkiisu hoos u dhaqaaqow waxa weeyaan adigaan kugu horeysiinayna wassalaamu calaykum leenahay culayska gobolka Awdal saaran gobolka Awdal duulimaad baa lagu yahay in Ciise buug ma sitee godalku doonaya ninka aqli gaaban ee maxay haydaan Ciise buug buu doonayaa lahow sheekadu buug way ka weyn tahay war waxaan leeyahay ummadda Samaroon waxaan leeyahay baroorta orgiga ka weyn kada bursiya u dhulkaaga rido xoogaaga iyo muruqaaga geli hiil iyo hooba anagoo hooyooyinkii ay nila garab taagan maanta Ciise dhulka ama qaadaya shalayba waad istaqaaneen oo waad la dagaalamaysa Ciise waa kii uun ku kala maaha waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland mid baan u dirayaa waxaan leeyahay cirrow dadkan adaa ka mas'uul ahaa dadkani aday shalay ku codeeyeen gobolka Awdal baad ka soo baxday haddaad maanta ummadii ka dooratay inaad lugta u qabato Ciise taaree Awdal kaama yeelayaan ee ku abshirso mid kale aan kuu sheegayaa wasiirada aad iyo shirarkaad nagu furtaad wasiirada nagu soo shanjeer celinayso annagu ma ogolin cidna halkaan joogna nagama dhaqaajin karto isma bedelee ree Awdal guul baan leeyahay ree Awdal waa mid kaliya gadabuursi waa mid kaliya saylac waa aftirsiintaadii saylac waa dhaxalkaagii waa halkaadina ku sabayseed laydoo badda lagu furayaa joog ma hayno Ciise dhul uma hayno Ciise waa dhulkeennii naadulka ma Ciisaynu siinaa dhulka saw inagu iskama lihin saylac saw masiirkeennii maaha saw hantidii gadabuursi maaha saylac waanu ku dhimanaynaa saylac waa dhaxalawoowo midhyaroo tixyaroo baan raacinaya halkan inigoo iga raalliya waxaan leeyahay Samaro waa dawladay waa dabiya rasaas Samaro waa dawlado waa dabiya rasaastu daadiyana wala daba gurta ninkii doonta daar buu waraabiyaa badano biya keentaya buura ku dubi kara badano biya keentaya buura ku dubi kara xidiga yaa tirin karo dhulka taakin kara Samarono soo cartamaya cabiidin kara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامة مسلمك يا نقول سلامة يا سلامة وحن نقول سلامة يا سلامة إسلامك وحنو ناي هويك يا أودان أفكاري بكو هلا يا
maanta waxa weeyaan madaxweynihiisa yimaada Soomaaliland wuu yeedhaa Ismaaciil Cumar Geelle gobol buu fidiyaa wuxuu u dan leeyahay inta uu ka saxeexa dan kale kamale maxaan idhaahdaa ciray maalintii aantuunu ku yeedhin mowqif baad lahayd maantana mowqifkaad kala soo noqotay waa la og yahay sidaa daraadeed annagu dhimashaan ka naqaanaa sayla dhimashaan ka naqaanaa talabaadna ciise waxaan leeyahay ciisow imaqal war cawaanka markaad ahayd cidaada markaad la joogtay tafeeniya tala xumayd markuu curki noo da'ee ramaashku noo baxaad ka soo guurteen galbeed markaad geela daaqa keentay markaanana daaya idhi miyaad ani igu maqnayd war markaan calan kuu saxeexay markaan cirka sare ku geeyey markaad nagu caanamaashay tacliinta markaan ku baray markaan tiirtiiriyo tacliinta markaan ku baray markaad taabada gasheen miyaad ani igu maqnayd walle ciise wuu kibree allow camalkiisa sii walle ciise wuu kibree allow camalkiisa sii walle ciise wuu kibree allow camalkiisa sii waxaan odhanayaa anigu waxaan leeyahay meel la joogo waar maanta waa qiriiri qadla waa saylac xumaha layna qabtay xumaha yaa layna hayne maanta gadabuursi waynaw maanta ka war gadabuursi waynaw ka war maanta gacmaha isqabsada war waa laynagu maqan yahay waa layna weeraray xumaha layna hayaa qol walba bad buu leeyahay waa badani waxa la doonayaa war maanta hala kaco war gadabuursaw ka badda joogow ka bariga joogow ka galbeed joogow ka dabadda joogow maanta waxa la baahan yahay maanta weerar baa loo baahan yahay anigu waxaan leeyahay ciise raggii ku xereeyay Djibouti Samaroon buu ahaa waa la garanayaa waa adigii oran jiray ragga cadcad ee gaalada waa ciise waa la yaqaanaa midda labaad waxaan ku leeyahay Djibouti baad ka mudaharaadi kari weyday madaxweynaad iska ridi kari weyday markaas aad doonaysaa ragga Samaroon dhulkooga inaad ku mudaharaato kafta ku qaadato wallahi inayna dhacayno aniga ugu horeeyo qoriga soo qaadanaya